kulan ciyaareed ay soo abaabuleen midowga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan isla markaana kor loogu qaadiyay isdhexgalka dhalinyarada kaasi oo socday muddo hal bil ah oo ay ka soo qayb qaateen ku dhawaad 16 kooxood ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Khartoum kaasi oo isugu soo hareen labada kooxood ee ku kala ciyaarayay FC Macmuur iyo FC Tasaamux gabagabadii kulan ciyaareedka ayaa waxa ka soo qayb galay la taliyaha koowaad ee safaaradda ahna safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Cismaan Axmed Maxamed ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Cabdilqaadir Daljecel isagoo ka warbixiyay ujeedka ay u qabteen kulan ciyaareedkan iyo marxaladii kala duwan ee uu soo maray muddadii uu socday. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Danjir Cismaan runtii caawa habeen weyn weeye waa haween aan soo gabagabeynay koobkii ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan kaas oo runtii socday muddo ku dhow bil socday ayna waxa weeye isku arkeen ilaa 16 kooxood caawa waxaan joognaa gabagabadii ciyaarta oo labada kooxood FC Tasaamux iyo FC Macmuura ay isku arkeen run ahaantii koobka ujeedadiisu waxay ahayd isdhexgal oo kaliya integration ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan inay isdhexgalaan isbartaan sida ka dareemaysa runtii rag badan oo magaalada ku nool xafiisyada kala duwan jaamacadaha kala duwan kala dhigta ayuu koobkana kulmiyay hadafkan kale kaas weeye maadaama aynu qurbad joogno loo baahan yahay inagu isbaranno inagu isdhexgalno koob wuxuu ahaa runtii koob dhinacna ka caafimaad oo runtii aan lahayn wax xamaasad ah maxaa yeelay kuma dhisnayn dhammaan wixii xamaasad keenay kuma dhisnayn gobollo kuma dhisnayn degmooyin jaamacado waxa kuma dhisnayn wuxuu ku dhisnaa xaafado iyo saaxiibtinimo iyo arrintaas waa runtii arrin ay ka shaqeeyeen xafiiska ciyaaraha ee midowga ardayda Soomaaliyeed aad uga fikireen aad baan uga mahadcelinayaa waxaa sidoo kale halkaasi hadal ka jeediyay siyaasada safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Cismaan Axmed Maxamed isagoo sheegay in lagama maarmaan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay hesho in loo qabto kulamo noocan oo kala ah isla markaana kor loogu qaado isdhexgalka iyo isbarashada reer Suudaan waxay dhigi jireen maamulka safaaradda waa naga soo dahday waa noo goysay laakiin maanta aan idin ka soo horeeyay aan maleynay aad baan ugu faraxsanahay runtii galabta casarkii ilaa hadda inaan banooni u taagnayn oo labada kooxood isku soo haray 16 kooxood ka soo haray inaan la qaybsado farxadda caawa halkan ka dhacday oo ciyaarta quruxda badan oo labada kooxood Macmuura iyo Tasaamux inay ahayn baan filayay labada magac runtii aad baan ugu faraxsanahay ciyaar qureexa iyo isdhexgalka bulshadana waa wax muhiim ah weeye runtii marka laga hadlo guddiga midowga ardayda Soomaaliyeedna waan u mahadcelinayaa arinta ay qabteen muddada soo socotay 16 kooxood baa soo tartantay dabcan sida la ii sheegay laba kooxood baa caawa isugu soo haray hortu labadiinaba waad guuleysateen mar haddii labada finalka soo gaaray waxay la mid yihiin laba guuleystay bay la mid marka taa hortu inaad guuleysateen baan idin sheegayaa tan labaad waxaan kugu bishaareynayaa muddada aan anigu joogo halkaas hadduu alla idmo ardayda Soomaaliyeed inaan garab iyo gaashaan u nahay haddaan nahay safaaradda Soomaaliyeed waxa la iyo wixii karaankaye ee u baahantiin oo safaaradda uga baahantiin safaaradda adinka iskale adinka ayay idin shaqaysaa annagu waxaanu nahay kaliya khadam idin shaqaynayaan nahay hawlaha adinku aad rabtaan baan qabanaynaa wax aadna raali ka ahayna kama soconaysa safaaradda gudaheeda qowlkiina soconayo hadalka dhadan baa soconayo dhammaan sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaan hore u sheegay insha Allah in aan si cad ugu dhawaaqnay in dhammaan loo sameeyo qiimo dhimis dokumentiga ka baxa safaaradda waxaana ina dareenkooda ka warbixiyay dhalinyarada ciyaaraysay oo sheegay in aad ugu faraxsan yihiin inay helaan fursado noocan oo kala ah waxaan ku faraxsanahay inaan final dhilo aniga iyo Macmuura iyo Tasaamux أنا أقامين إنه تسامح قول شيء قارين أو همبليانا معمورة همبلي الله همبليو وأنا عيال كده نيرت حافظ واي مركان همبليه ده كلي لا ما همبليانا إن شاء الله ugu dambeyn waxa halkaas si bilad iyo koobka lagu guddoonsiiyay kooxda qaaday koobka FC Macmuura Ahmed British Home Cable TV Khartoum